guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee hirshabele ayaa kula la qaatay guddiga doorashada ee qabanaya doorashada aqalka sare baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee uu soo magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi kulankan oo soo qabanqaabiyay guddoonka baarlamaanka hirshabele ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa wadaajinta wada shaqeynta labada guddi dhaxdooda iyo sidii loo ambaqaadi lahaa doorashada xildhibaanada ku matali doona hirshabele labada gol ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya xubnaha gudiyada ayaa isla gartay in doorashada ay noqoto mid hufnaan ah isla markaana ay ku wada qanacsan yihiin ka qaybgalayaasha sida uu warfideenada u sheegay xildhibaan Soomane oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabele bismillaahir rahmaanir rahiim bahda warbaahinta aad bay u maasan yihiin waxa halkan ka dhacay shir wada jir ah oo u dhaxeeyay labada guddi kuwaasi oo kala ah guddiga doorashada aqalka sare ee laga soo magacaabay baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabele iyo guddiga doorashooyinka hirshabele ee dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa dowladda hirshabele kulankan waxa soo qaban qaabiyay guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabele waxaana ujeedadiisa uu ahaa isbarasho iyo xog kala warqaadasho maadaama dhawaan la gudagali doono arrimihii doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabele waxa uu guddiyada iyo guddoonka baarlamaanka isla qaateen in si wada jir ah isla wada ogol ah looga shaqeeyo doorashooyinka nagu soo fool leh hadduu April ka noqdo oo ay ugu horeyso doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay ka shaqeyn doonaan guddiga doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabele isla markaana ay korjoogto ka noqon doonaan guddiga doorashada federaalka heer state ee dowlad goboleedka hirshabele kulanka waxa sidoo kale lagu soo qaaday in si xur ah oo cadaalad ay ku dheehan tahay isla markaana lagu wada qanacsan yahay laga soo saaro doorashada si wada jir ahna ay isku la shaqeeyaan labada guddi ee caaw halkan ku kulmay guddoonka baarlamaankana waxay aad ugu riyaaqeen soo jeedinta guddiyada halkan ku kulmay ee ku aadanayd arrimihii la isla soo qaaday ee doorashooyinka hirshabele kuwaasi oo ay dhawaan gudagali doonaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dowlad goboleedka hirshabele waxa ay guddiyadu soo jeediyeen in ay si wada jir ah uga shaqeeyaan arrimaha doorashooyinka ee nagu soo fool leh Axmed Bootan Yusuf VOS TV Muqdisho.